kasoo cusboonaaday sidii loo xallin lahaa annagoo ugu horeyna odayaashii dhaqanka ah saxiixayaalkii ah xildhibaanada ka soo jeeda madaxweynaha dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha intaba waxaan si aad uga codsanaynaa inay nagu gacan siiyaan oo gacan xallin ay nagu siiyaan waxaan u doonaynaa in waxa ka socda galmudug la xalliyo oo gacan wanaagsan lagu xalliyo dhibaatada waa maqlaynaa uma fiirsan karo waxa la yiraahdaa dhexsocodta dad dhaantay dhugatana geed dhaantay waxa laga yaabaa in dad nagu dhex jiro aan xal rabin dadkaas aan xalka rabin waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hadii ay ku roon yahay xildhibaanada iyo labada aqalba inay nagu gacan siiyaan aniga magacayga waxa la yiraahdaa garaad aadan cilmi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسيادة سلطان مضى نبضون نضى ضمان خيارتك لو ما شفت الصحافة وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشير صحافة كان ما أنت وحكوا كسب سنة هاي عيصدها سياسة قلمدو كتيره iyo wararka meediyaha iyaga naga soo gaaray leeyahay khilaafku wuxuu sii gaaray dawladda iyo galmudug arintaas runtii aad baan uga xunnahay maanta oo maaragtay Soomaaliya horu socod iyo horumar iyo maaragtay nabad iyo la sugahayay in maanta dhibaatooyin soo laabtaan oo khilaaf maamuladii uu ka yimaado gaar ahaan hadda galmudug khilaaf ka dhex yimaado dawladda dhexe iyo galmudug la yiraahdo khilaaf baa ka dhex jira arintaas aad baan uga xunnahay wax la sugahay ma ahan waxaan filaynay ma ahan waa dibdhac ummadda Soomaaliyeed runtii aan isleenahay waa ku soo laabtay arintaas marka anagu ka odayaal ahaan waxaan islahayn markii hore bal siyaasad iyo waxba jidho arrimo siyaasadeed weeye xoogaa waan ka yara gaabinay haddaanu marka aragnay hadda arintii in maaragtay isbedel weyn uusan jirin ee arintii ay sidii u taagan tahay hadde waa ku qasbannahay maadaama deegaankii annagu aan ka soo jeednay uu yahay odayaashii dhaqanka oo maaragtay dawladda dhexe dhisay aan ka mid nahay kuwii galmudug soo dhisay aan ka mid nahay intaas hadda wax ka badan waa loo dul qaadan waay inaan marka maanta ka hadalno oo aan ra'yiga ka dhiibanno waa laga maarmaan bay noqotay arintaas marka annagu fakarka aan ka qabnaa waxa weeye galmudug xiisada ka dhex jidha oo khilaafka iyaga dhexdooda ka jira in nabad lagu xalliyo oo si hoos lagu xalliyo khilaafkaas galmudug ka dhex jira in si nabada lagu xalliyo ayaan maaragtay anagu soo dhaweynaynaa ayadana ku shaqayn doona waxaan kaloo yana la mid ah khilaafka siyaasadeed oo dawladda dhexe iyo galmudug ka jidha sidoo kale ayadana in hoos loo xalliyo oo si degan oo maaragtay miyir qab ah in lagu xalliyo ee aysan noqon meel maaragtay lagu kala cad goosanayo ah maaragtay xoog iyo awood waa wixii Soomaali ka soo gudubtay waa wixii laga yimid waa wixii la iska cafiyay uma baahna marka maantay war maamul hal la dumiyo iyo dawladii dhexe hal barabagaana iyo waxaas waa wixii hore waqti nooga dhumay weeye wixii laga alla bariyay weeye marka waxaan soo jeedinaynaa in galmudug arrimaha maaragtay khilaafka oo ka dhex jirana nabad lagu xalliyo dawladda dhexe iyo madaxda galmudugna maaragtay sidoo kale wada hadal lagu xalliyo ee arintaasi maaragtay meesha hadda ay gaadhay laga soo celiyo annagu taasaan soo jeedinaynaa waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa cid kasta oo galmudug gacan ka geysanaysa oo nabadeeda rabta ama khilaafka galmudug iyo dawladda dhex yaalla maaragtay rabta wanaageeda aad baan u soo dhaweynaynaa cid kasta ha noqoto aad baan u soo dhaweynaynaa gaar ahaan waxaan leenahay dawladda dhexe mas'uuliyad gaar ah saaran مسؤولية جارك أو صارن وحويه
haddii khilaaf ka yimaado maamulada dhexdooda waxaa laga rabaa dawladda dhexe si degan oo miyir qab ah oo nabaddoonnimo ah wixii ka dhex jira inay ku xalliyaan. alxamdulilah uma afdalu salaatu wasalaam calaa rasuulillaah sala allahu alayh wasalam amaa bacd. golaha madax dhaqameedyada saxayaasha maamul goboleedka galmudug ee soo dhisay golayaasha heer qaran heer gobol degmo ee gobolka maamul goboleedka galmudug ee kulan saxaafadeedkan ka soo qayb galay kana qeyrooday run ahaantii qayladhaanta ka soo yeedhay galmudug saxaafadda iyo dhammaan khayrisidayaasha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan la qabaa ogaaska iyo garaadkii iga hormaray intii ay yidhi qowl iyo ficilba waa la qabaa keliya hadalka haddii uu dhan yahayna uma baahna in la siwxeeyo. anuu ah ogaas maxamed bashiir ogaas xasan sheekh bashiir waxaan ku biirinayaa codkayga kow cid kasta oo danaynaysa jiritaanka galmudug waan soo dhawaynaynaa. cid kasta oo khilaaf iyo dhib ku abuuraysana waxaan leenahay dhinaca wanaagga u baydh dhinaca wanaagga u baydh. gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa baa la yidhi ina daruurata bixu maxduuraat buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yidhi yacnihii shay hadduu yimaado oo shaygaasi uu shay kale oo hore u jiray uu culays ku yahay shay aan markaas qornayn ayay bannaysaa daruuriyaadku. sida awgeed galmudug waxay u baahan tahay midnimo isu keenid nabadayn si loo badbaadiyo dadka abaaraysan iyo horumarinta dhaqandhaqaale siyaaso iyo bulsho ee loo idmaday mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug midnimaana wax ku heli karnaa. si awgeed waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ee golayaasha baarlamaanka aqalka sare aqalka golaha shacabkaba inay door weyn iyo gacan ka geystaan xallinta khilaafka yar ee kasoo cusboonaaday galmudug gacanna nagu siiyaan haddaanu nahay madax dhaqameedyadii labada gole xubnaha ugu jira waxgaradka galmudug waan ku filannahay in iyadana wanaag kasta oo kasoo ifbaxa halkaas dowladda dhexe ayaa mas-uuliyaddeeda iyo karaamadeedaba aanu kusoo dhaweynaynaa in gacanna nagu siiyaan codsanaynaa. midnimaduna saasay ku jirtaa. golayaasha galmudugna waxaan ugu baaqaynaa heer kasta oo yihiin aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka iyo golaha maamul goboleedyadaba inaan midnimada iyo dib u heshiisiinta sulxnimada galmudug maamul goboleed aan ka wada shaqayno oo aan qofna dan gaara iyo meel kale u ordin sida uu yidhi garaadku maamul goboleedyada ku shiraya kismaayo waxaan ku biiraynaa inta uu garaadku yidhi wanaag midnimo iyo dowlad wanaag baan u baahannahay isqadqabad iyo qardoofaad dambana waa inaga dhammaaday shacabkuna taaguma hayo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي أنا مجاعيق وسلطان حسن أحمد سفرية وضياش كسر جد الملوك إلا هير قولي هير قرن انتبه لا سوجري وإحنا كسر لسي وركيق وحول يجي هاي ضياش هراء أو حضلي هذي يقاس هايين هذي جراد هايين هذي سلطان هايين هذي نبضان هايين وركي هراء ضياش هراء أيان أيده وركلا يقوم يجره waxaan codsanaynaa dowladda galmudug khilaafka ka dhex jira inaan ka shaqayno ayaan diyaar u nahay oo dib u heshiisiin dhaba laga sameeyo oo maaragtay dhismaheedii waa ogtihiin waxa laga soo maray galmudug dhisitaankeeda waxa laga soo maray nin walba waa ogtahay inta loo fadhiyay waa ogtihiin meesha hadda ay joogto ciyaar laguma keenin juhdi badan baa ku baxay dhib badan baa ku baxay qarash badan baa ku baxay waqti badanaa ku baxay waxaan rabnaa marka waxa sidaas laga soo maray oo culayskaas nagu qaatay si fudud
inaysan nooga halaabin waa codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka waa ka codsanaynaa maamul goboleedyada kale waa ka codsanaynaa oo deriska la ah ayaga naftirkoodana waa ka codsanaynaa maamulka oon shalay wax u dhiibno oon ammaanadii u dhiibnay oon madax meesha uga dhignay ayagana waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay miyir yeeshaan oo si miiran ay maaragtay isku warsadaan oo khilaafkooda ku xalliyaan ayagana intaasaan ka codsanaynaa shirka ka socda Kismaayo waxaan leenahay maamul goboleedyada Kismaayo isugu tagaya nabadoonno isku tagay oo qayr soo saaray noqda ayagana sidaasaan leenahay nabadoonno isu tagay oo qayr soo saara oo dawladooda maaragtay wax waran soo saara oo shacabkooda wax waran soo saara ayagana intaasaan ka codsanaynaa dowladda federaalka waxaan leenahay in meediyuhu waana wareershay meediyuhu geedka meediyaha la yiraahdo waana wareeriyay wax ruma ma taqaanid wax beena ma taqaanid war baa laga sheegaa waxa la leeyahay diilay kuroya dowladda dhaxayada dadka qaniinaha la leeyahay maamul goboleedkay qaniinaha la leeyahay waxbay sidaan yeelay leeyihiin mana qabna anagu runtii laakiin waa maqalnaa ma qabno odayaalahan hadaan warkaas ma qabno oo dowladana ma qabayo oo warkaas hadii la kuroya dowladana ma qabto annaguna ma qabno laakiin warkii dhagaheena soo gaara maadaama dhagaheena uu soo gaaro waxaan rabnaa dowladda dhexe dadka ayadaa leh dhulka ayadaa leh ayadaa mas'uul ka ah wax oo dhan waa nabadoon ra'iisul wasaaruhu waa nabadoon haddii alla ku reebay farmaajo waa nabadoon madaxweynaha waxaan rabnaa inaad nabadoonaysiin waaba nabadoonaynaysiin annagaa oge inaad meeshiinaas aad ka sii wadiin ninkii faraska saaray oo uleynayay waxaa la yidhi waaba ordaa xageed jeedalka u wadaa inuu ka sii daraan rabnaa uu yidhi waxaan rabnaa inaad maaragtay adinkoo nabadoonahan ognahay oo wax qabanaya oo wax qabtay inaad ka sii badisaan intaas ayaan adinkana idinka codsanaynaa odayaashiinuna waa idin diyaar waxaan idinka codsanaynaa maamulka dalmudug ka jira oo khilaafaha ka jira leeyahay asiga naftirkiisaan rabnaa inuu sidiisaas ahaado dib u heshiisiin laga sameeyo asiga liisku celiyo gacmaha liisu gelsho shaqadana meeshooda ay ka wadaan dowladdana sidaasaan ka rabnaa inay garab nagu siiso ayadana aan garab ku siino sidaas laga wada shaqeeyo maaragta dhex orod hadduu jirana waxaan u malaynayaa inta liiska soo gaaro liisaga warramay inuu ku egahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu